22 Oktoobar 1969 waxay ahayd maalintii dalka Soomaaliya ay la wareegeen ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed taasi oo ka dambeysay kadib baarlamankii rayidka ahaa ee xilliga jiray oo muran iyo booq fara badani markaasi hareeyay taasi oo ku wajahan cidii loo dooran lahaa madaxweynihii badali lahaa Dr. Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo 15 Oktoobar 1969 lagu dilay magaalada Laascaanood xilli halkaasi booqasho uu ku marayay habeenimo isniina oo aroornimadeedii Talaado ahayd oo ay ka hadleen raadiyo Muqdisho saraakiishii ciidanka ee dalka la wareegtay ayaa waxay sheegeen in dalka Afgambi ay ku qabsadeen magaalada Muqdishona lagu soo rogay bandow soconaya 4 galabnimo ilaa iyo habeenkii waxaana ciidamada awood loo siiyay inay baari karayaan goob waliba oo wax ku tuhmayaan haddaba aan wada dhageysanno wariye BBC-da xilliga Muqdisho u joogay oo warbixin ka diraya kana hadlaya xaaladda magaalada Muqdisho waxaana isagoo ribood diraya uu yiri ayaa la wareegay xukunkii dalka Soomaaliya inqilaab ay dhigeen oo wararku ay sheegayaan inaysan dib u daadan waxaana ay sameeyeen majlis al-inqilaab afgembigaasi wuxuu dhacay salaadii saacad waxaana ay ku afgembiyeen xukuumaddii Mr. Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ee ka samaysneyd xisbiga SYL waxaana 6 maalmood ka dambeysay dilkii madaxweynihii Soomaaliya President Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo degmada iminka loo hayo in ka mid ah ciidamada leyska reeriyowga magaalada Muqdisho wuxuu xigtay waray ku dhawaaqeen majliska inqilaabka cusub oo ay sheegeen in afgembiga ay u dhigeen si ay uga badbaadiyaan oo ay uga bixiyaan dalka Soomaaliya waxa ay ku tilmaameen musuqmaasuqa iyo xumaan taliska jamaacadda u baraystay inay taliyaan bandow ayaa lagu soo rogay dalka inta u dhaxaysa 4 galabnimo ilaa 10 subaxnimo waxaa kale oo majliska inqilaabku ay ku dhawaaqeen inay u shaqayn doonaan sidii loo baabi'iyo qabiilnimada waxaana la mamnuucay 3 ruux wax ka badani inay jiraan ciidamada militariga ayaa ilaalinaya oo tuban jidadka magaalada Muqdisho waxaana amar loo siiyay inay baaraan guryaha iyo baabuurta xuduudda dekedayaasha diyaaraadka ee dalka Soomaaliya waa xiran yihiin majliska inqilaabkuna waxay sheegeen siyaasadii dibadda ee dalka Soomaaliya inayna isbedeleen kalfadhigii ugu horeeyay ee yeesheen saraakiishii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu yagleelay golo sare isagoona loo idmaday inuu hormuud u noqdo sareeye gaas Jaalle Maxamed Siyaad Barre waxaanu daawadayaal isku dayi doonaa inaan idiin soo koobno taariikh nololeedkii Jaalle Maxamed Siyaad Barre Maxamed Siyaad Barre waxa uu dhashay 1919 wuxuuna ku dhashay magaalo lagu magacaabo Shilaabo Maxamed Siyaad Barre hooyadiis waxaa la oran jiray Shaqlan Warfaa Siyaad Barre markii ugu horeysay waxa uu tababar ciidan ku qaatay magaalada Baladweyne markii tababarka uu dhamaadayna waxaa loo soo bedelay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka waxaa loo keenay si tababaro dheer iyo ciidamada uga sii qaato xeradii ciidamada ay ku taala degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho Maxamed Siyaad Barre wuxuu ku biiray ciidamadii Ingiriiska waxaana dalacaadii ugu horeysay ahayd Alifle ka helay sanadu markii 1941 Maxamed Siyaad Barre oo 3 xariglaa waxaa loo qaaday dalka Talyaaniga sanadu markii 1952 16 Oktoobar 1954 ayaa Maxamed Siyaad Barre uu qaatay xidigtii ugu horeysay oo noqday sarkaal 1960kiina waxaa la dhisay ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ee uu hogaaminayay Allah u naxariistay generaalkii sida aadka loo jeclaa Generaal Daawud Cabdillaahi Xirsi markii uu geeriyoodana sanadu markay ay 1965
waxaa bedelay oo jagadaasi qabtay jenaraal maxamed siyaad barre isagoona noqday taliyihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaana xukunkaasi uu hayay muddo 21 sano ah waxauna ku geeriyooday dalkaasi nigeria oo magangelyo ahaan u joogay ilaa iyo sanadkii 1995 23 oktoobar 1969 ayuu jeediyey maxamed siyaad barre khudbadiisii ugu horraysay waxaana uu soo hadal qaaday sababta xukunka ay uga tuureen dowladdii rayidka ahayd iyo hadafka ay hiigsanayaan haddii ay yihiin towradda dalka la wareegay dowladdii Soomaaliya waxaa si weyn loogu xasuustaa xanaanayntii iyo barbaarintii carruurta agoonta iyo ubadkii kale iyagoo aanan haysan cid xanaanaysa iyo horumarkii dalka oo meel hoose dowladdaasi intay ay ka soo qaaday dusha sare geysay ana kacaanku guulo uu ka keenay waxyaabo fara badan oo dowladdii ka horraysay markaasi ay ku guuldarraysatay waxaana ka mid ah ololihii barashada afka hooyo dhismihii hay-adaha dawliga ee dalka laga fuliyey barnaamijkii iskaa wax u qabso dhismihii isbitaallada dugsiyada waxbarashada ilaa iyo heerarka jaamacadeed oo lacag la'aan laga dhigay qof kasta oo shaqaale dowladeeda waxaa lagu waajib yeelay inuu tababar u galo xerada tababarada ee xalane waxaana taasi ay keentay inay kororto tirada iyo tayada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mar maxamed siyaad barre wax laga weydiiyey in talada ay dib ugu celinayaan maamulkii rayidka ahaa ayaa isagu waxa uu kaga jawaabay waxaan leenahay xukunku waa inuu ku jiraa shaqaalaha iyo beeralayda